iyadoo abaaro ay saameeyeen dadka iyo dunyada ku nool gobolka Gedo ayaa ururka samafalka Somali Faces waxay raashin qaybin u sameeyeen in ka badan 400 oo qoys oo ku xoolo beelay abaarta kuwaasi oo ka kala yimid miyiga fog ee Garbaharey iyadoo ay barbar socoto biyo dhaaminta laga sameeyay deegaano badan oo ku yaala gobolka Gedo kuwaasi oo ururka samafalka Somali Faces ay ku caawinayaan dadka abaaruhu ay ku saameeyeen ee ku nool gobolka Gedo qaar ka mid ah dadka ka faa'iideystay raashin qayminta ay sameeyeen ururka samafalka Somali Faces oo ka mahadceliyay deeqda ayaa dalbaday in si degdeg ah loogu soo gurmado maadaama ay ku xoolo beeleen abaarta deeqay raashinka nasiiyay abaaraadka nugu deeqay waa mahadsan yihiin boqolkiiba boqol bay mahadsan yihiin waxa weeye waxaan ka rabnaa intaas iyo intoo kale laan abaar baa aad noo haysa dad iyo dunyaba naga haysa intay noo heli karaan ilaahay baa wax bixiya inay noogu deeqaan oo nasiiyaan baa rabnaa annaga horta dadkii soo qaxay baan ku jirna oo meesha imaaday dhibaato aad u weyn baan haysatay horta dhibaatada ilaahay baa dadka dul qaadi karo marka dadka raashinkan soo gaarsiin maxad celin baa qeelin teeda kale waxaan rabaa wixii muslim ah kullee wax nagu taaga kala saaray inay wax nasiiyaan baa rabaa adeegay dadka noo keenay raashin badan oo saliid leh oo bur leh oo sonkor leh bay noo keeneen wayna ku mahadsan yihiin iyadoo weli ay ka socoto biyo dhaamin laga sameeyay deegaano badan oo dadku haraad iyo gaajo ay ugu geeriyoonayaan sida deegaanada dhacaduleedka Ceelwaaq duleedka Garbaharey gaar ahaan deegaanada Diirhaara waa kan Dr. Maxamed Ibrahim Shire oo ah gudoomiyaha ururka samafalka Somali Faces oo sharaxaad ka bixinayo sida ay u socoto gurmadka abaaraha oo ay ka sameeyaan gobolka Gedo bismillaahirrahmaanirrahiim dhawaan waxaan gudagalnay gargaarka la xiriira abaarta soo wajahday gobolka Gedo ee dowlad goboleedka Jubbaland ee dalkeena Soomaaliya bisha Maarso horaanteedii waxaan ku yahoonay in gacan weyn loo fidiyo bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Gedo kaasoo la xiriirta abaarta ka taagan gobolka Gedo hadaba waxaa suurooday Ilaahay subxaanahu wa ta'aala fadligiisa kadib in dhammaan dadkii donation ka qayb qaatay inaan gargaar u fidino oo yaraa 1500 qof nabigeena sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri qofkii aan dadku u mahadnaqin Ilaahayna uma mahadnaqin taas awgeed waxaan doonayaa in aan u mahadnaqo dhammaan dadkii ka soo qayb qaatay gargaarka bid'aanimo